munaasabad si weyn loo soo agaasimay islamarkaana isugu jirtay soo dhoweyn iyo taageero loo muujiyey guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga Soomaaliyeed Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo ayaa lagu qabtay magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee waddanka Norway waxaana ka soo qayb galay xafladaasi dadweyne aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda sidoo kale waxaa jira marti ka timid magaalada Oslo oo ah caasimadda koowaad ee isla dalka Norway dadka meesha yimid waxaa ka muuqatay taageero badan oo ay xisbiga isbahaysiga Soomaaliyeed u hayaan kaasi oo uu gudoomiye ka yahay Ambassador Maxamed Nuur Cali Americo haddaba warbaahinta wacdaraha nolosha ayaa idiin soo gudbinaysa munaasabadaasi ee ka bogasho wacan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. codkayga ma la maqlayaa aad iyo aad aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalkeena intii aad na sugayseen oo aad noo dulqaadanayseen waad ku mahadsantihiin marka hadda insha Allah waxaan iska bilaaban doonaa xafladii aan ku soo dhaweynaynay Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo barnaamijku uu dheer yahay maanta maalin dhaweyd waxaa jirtay shir sidan oo kale oo aan qabsanay oo qof siyaasi iyo diblomaasi oo noo yimid waqtigaan ugu yaraa caawa waa la isfogaarayn doonaa waqti baad isu heli doontaan insha Allah marka idinku waan maaragtay jawaabihiina iyo kommentaarkiina halla maaragtay ha ciilina marka ugu horeyn insha Allah intaan barnaamijka sida tooska u furan dad badan ayaa hadallo ka soo jeedin doona marka sidii caadada ay dhaqanku ay ahayd waxaan ku furfuran doonaa bal quraankii iyo wacdi kooban oo uu inoo soo jeediyo imaamkeena Sheekh Cabdiladiif Axmed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وسلامتين دمانتين aan ku bilaabo marka ugu horeysa يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي cabsiisan marka ugu horeysa inuu isku dardaarmayna dhamaantii ruantii dad muslimiin u nahay isku nimidnay halkan alxamdulillahi rabbil caalamiin waana ugu mahad celinaynaa in xafladan iyo cidii soo qaban qaabisay iyo cidii safiirka inoogu yeedhay iyo dhammaan qof walba intuu ka qabtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka abaalmariyo waxaan u malaynaya magaalada Bergen cawaysyo noocyadan aan u baahannahay oo way nagu yaraayeen aad baan uga mahad celinaynaa number 2 waxa kale oo muhiim ah walaalayaal kullay safiirka nagala jooga waxa laga sheekeynaa waa hoggaan ambiyada ilaahay soo diray hoggaan umadeed bay haayeen ummadaha in la hogaamiyo nabi walba meel buu ummadda ka hogaaminayay duruufo kala gedisan bay haayeen hoggaankana waxa loo baahan yahay markay dhibaatooyinku bataan ee rafaadkii ay bataan baa loo baahan yahay leadership ummaddan hoggaan jidka saxda dadka tusiyo la door jidkaas lagu nabadgalay halka mara dadka ku yiraaha si gaar ah waxaan aniguna soo dhiinile soo dhaweynaya insha Allah anoo magaciina ku hadlaya Maxamed Cali Americo safiirka inala jooga muddo dheer ahaantii aan laba arrimood ilaa saddex arrimood baan ku sheegi karaa maanta inala joogo Ambassador Maxamed waxaan ku xasuusan doonaa baan maleynayaa kow safaarad buu muddo dheer joogay Soomaaliduna aad ugu baahan tahay magaca Soomaaliyeed iyo wadaniyadii iyo Soomaalinimada inuu aad sare ugu qaado ka shaqeeyntiisii iyaan ku xasuusan doonaa oo caawina ula jooga oo kale taasi waxay daliil noogu tahay qofku meel kastuu joogo inuu Soomaaliya safiir u noqdo oo bal magac wanaagsan ummadda Soomaaliyeed intuu u qaban karo u qabto haddii aanan wax u qaban karin dhibaatadiisa oo ka ilaashado number 2 waxaan Maxamed caawa halkan ku amaanaya oo nagala jooga mas'uuliyiinteena Soomaaliya in yar baan xasuustaa Allahumma abdi waraabi Allahun xariisteeba ka sii horeeyaan malayn qof uun mas'uul oo garanayo si dagaaladii sokeeyay dhibaatooyinkiina soo gaaray qof toos ay intay u saameysay ee jidkii loogu talagalay inuu kaga baxay Maxamed wuxuu aan islaahay malaha
duruuftiisa waad ka dharagsantihiin oo inantiisii ninkii dilay inuu cafiyey cafiskuna uu yahay jidka lagaga baxayo dagaalada sokeeye cadhada iyo cuqdada jirta jidkii lagaga bixi lahaa inuu yahay ayuu tusaale inoogu yahay number 3 waxaan isleeyahay maxamed wuxuu kaloo tusaale inoogu yahay dee markii xilka laga qaadina muu fadhiisane arrimaha bulshadu ka shaqeeya iskuulku ka shaqeeya ceelal buu qodaa Soomaalidu kolba meel maraa waka caawbay nala joogay isku keenkeen adduunka noo iman essence kuma nimaadneena waxaan leenahay ku soo dhawow xaq uu leeyahay soo dhaweyno inta marka laga tago Soomaaliya mushkiladeedii siyaasadeedii xarba galay qabiil la yiraahdo xarkaas in looga saari lahaa waxaan u maleynayaa qabiilkuna daaweyn maayo haddii maanta aan xanuusto war reer hebel un hay daaweeyaan ma shaqeynayso nin wixii garanaya inuu daaweeyay noqonaysa waxaan u baahannahay ummadeennii hoggaan hagaagsan oon reer hebel ahayn noqonaya yaa meeshan hawshan garanaya waxaan u baahannahay siyaasad caqliga la hadasho oo cilmi ku dhisan oon caadifad ahayn intaasi waxaan isleeyahay waa inahan ku furfuranayno waanan iga waanuun bay tahay inaynu nahay innaguna halkan aan joogno baahiyaheena inaga lafteena hoggaanka halkan uga baahan magaaladeena sidaas ururka dumarkana si gaar ah ugu mahadnaqaya waxaan u baahannahay inagii ciyaaladeena sidaan hoggaan ugu noqon lahayn sidaan isku gargaarsan lahayn sidaan isku taageeri lahayn dulqaad badan aan u muujin lahayn magacaaga maadaama qof Soomaaliyeed tahay waxaad ka mas'uul Soomaali oo dhan baa magacaagii wadata marka inaad calal qalli inaad u soo jiido magac oo qof ummadiisii wax u qabanaya aad noqoto sida bulshooyinka kale la buunbuuniya Sri Lanka iyo aynu insha Allah tan aan ka bixi doonaa kulli facekii ugu horeeyaynu nahay dhibaatooyinkeena haysta in laga baxo imikadan baan bogaadinaya shaqadu way badan tahay waxbarashaduna way badan tahay in horumar la sameeyo iyo insha Allah taala inoo ballana maxamed cali ameerikana soo dhawow baan leenahay beerkan ku soo dhawow jaaliyad walaalaha ku soo dhawow jaaliyad wada socota ku soo dhawow jaaliyad waxba aynan u kala socnayn ku soo dhawow insha Allah taala waxaan rajaynayaa kulankeenu kulan khayr leh inuu noqdo waaradooda mahadsantiin inaad ka soo qayb gashaan jazaakumullahu khayr sheekh Cabdiladiif uu ku mahadsan yahay hadalkaas kooban ee qiimaha badan ee uu soo jeediyay haddaba sida loo kala horeeyo ayaan isku dayay doonaa inaan u siiyo dadka hadalka xamdi xaaji oo ka mid ah odayaasha magaalada ayaan isna ku soo dhaweyn doonaa bal inuu kelimadiisa gaaban iyo soo dhaweyntiisa uu nala wadaago kulankan caawa isku keenay waxaan marka hore soo dhaweynaynaa ambassador maxamed cali oo ah nin mas'uul ah oo hor u soo qabtay howlo badan hadday noqoto safiirnimo hadday noqoto howlaha mujtamaca laga shaqeeyo sida uu sheekh Cabdiladiif sheegay waxaan caawa aad ugu faraxsanahay inaad noogu timaado magaalada Bergen adigoo astaan u ah dadka yar oo Soomaalida oo farakutiriska ah ama siyaasiyiin ha ahaadaan ama howlaha kale ha ku jiraane wax qabad yani in ummadda wax qabadkeeda aad mar walba danaynayso una taagan tahay iyo adigoo shakhsiyan waxyaalo lagu dayo in qof lagu dayan kara ah labadaas ba anaga sharaf bay noo tahay inaad anagoo xusayna inaad haddana aad tahay qof xaggeena qiimo ka leh imaashahadan aan ku faraxsanahay haddaan nahay jaaliyadda Bergen ee reer Bergen ee soo dhawaan ku leenahay maxamed cali intaas haddaan uga baxo waa tan jaaliyadda iyo soo dhaweynteeda marka waxaan u malaynayaa haddii aan nahay reer Bergen iyo dadka magaaladan degan waxaan horta ognahay inaan alxamdulilah سورة القريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف markii la hadlay Quraysh laba arimo baa laga hadlay oo in Ilaahay uu ilhaamiyay safar oo ganacsi Ilaahay uu ilhaamiyay iyo in ay haddana nabad iyo ayna nabadna heleen colaadna Ilaahay ka badbaadiyay annaga Ilaahay mahadda leh dadkeena qurbaha yimid ee Soomaalida haddaan nahay meel walba aan joogno meelaha hadda aan joogno meeshaan waa meesha aan nabad ku haysano gaajana Ilaahay naga koriyay taas laakiin macnaheedu ma aha mas'uuliyaddiina saarnayd inay meesha ku harayso zamanka waa xumaaday waqtigan waa adag yahay saas darteed qofka bini'aadinka ah waa inuu og yahay meesha uu ku socdo meeshaan ku socono waxa waaye waxaa la gaaray waqtigii wadajirka wax lagu noqonayo haddii aan arrintii ceelka iyo tolnimadii ceelka aan joogno zamanka hadda la joogo kama bixi karno marka anigu siiba dadka Bergen degan odayaasha ugu horeeyaan aniga aan ku jiro
waxaan dhihi lahaa waxaa la gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn inaan ka arrimino mustaqbalkeenna iyo ilmaheenna iyo aayaheenna iyo waddankeenna aan u istaagno taasoo macnaheedu uu yahay qofka waajib baa saaran isla suuradda soddonaad ee baqara dooda dhexmaraysa ilaahay iyo malaa'igta uu ku leeyahay taas waxay sheegaysaa in qofka bini'aadinkaba xigmadda loo keenay ay tahay inuu wax hogaamiyo weynaynaa alxamdulilah anagoo maanta halkaas ku imaanay rag iyo dumarba labadaba alxamdulilah maanta anagoo soo dhaweynayna walaalkeena siyaasiga ah beergan siyaasiyiin ma keeni jirin laakiin xoogaa hadday noo bilaabato marka waxaa malena way noo sii soco doontaa iduu ilaahay dhaho wax badanaa qabsoomi doona insha allah marka hadda waxaa soo dhawaa adinkana aada u mahadsan tihiin soo qaybgalka kasoo qaybgasheen waqtigiina aad noo soo horteen aada u mahadsan tihiin waanii soo dhaweynaynaa haddana waxaan soo dhaweynaynaa insha allah walaalkeena oo noo imaaday asagaan ka warsugaynaa kolley wuxuu noo sheegi doono hadal badanna aniga ma haayo waanba ka xishoodaa mikrofonka laakiin waa kaas maamariyan aad ayay u mahadsan tahay maamariyan hadalka iskuma fiicnay wax qabadkay ku fiican tahay marka اللهم زد ولا تنقص mid oo bulshada ku wada hogaamiyo oo annakana ugu wada dhiirano Allah ka dhigo marka walaalkeen waan ku hambalyeena inta haddana waxa kale ugu hambalyeena hawsha oo soo hayay waan qana Nairobi inta oo joogay iyo inta siyaasadeena duruuf iyo luqaafo wareegaysa dulqaadka oo dulqaatay dadka kala duwan oo dhageystay habeenii maalin oo isku wada oo wili markuu xataa xilka ka tagay nin wax ka sheeganay ama nin wax ka tabanay la waay taasna macnaha maadaama uu dhameesto abaal oo hore u dhigtay oo tusaale ah resultaadkiisa heena dalka dhibaato jirto oo la kala qoqoban yahay oo qolo kasta dani ka leedahay ayuu meeshaas noo joogay waxa la yiri saddex nin ayaa meel isugu mideena la yiri nin waa wada 8 sano jir nin madaxiisa ayaa cadaada garkiisa waa madooya ninna garkiisa ayaa cad madaxiisa waa madooya ninna waaba gar la'aan waxa la yiri ninkii oo gar la'aan ka ahaa warniyo adiga gar la'aanta maxaa ku dhigay markaas wuxuu yiri 8 sano jirta faca gar leeyahin markaas wuxuu yiri umiska laba mid la raacaa hooyo iyo aabe ani hooyaa ka raacay ninkii kale oo waxa la yiri baalka magaciisa madaxa cadda oo garkiisa madooya warniyo adna maxaa ku dhaco madaxaada cadeeyay garkaadana madooyay markaas wuxuu yiri 20 sano kala weeyeen oo kan 20 jiro iga soo baxay kana waxa waa ila dhashay marka sidaas oo madaxayga ku cadaatay garkaygana oo ku madoowaday waxa soo haray ninkii kale oo la yiri adiga garkaada maxaa cadeeyay madaxaadan madooyay markaas wuxuu yiri far iyo fikir macnaha findhicil maalin kasta dhibaatada dadkayga haysto dhibaatada dadkayga haysto fikir ka fikiraya garkayga cadeeyay marka walaalkay waa u jeedin wax kale ma baahno waana ka soo shaqeeyay وأكون مع سنتي كسر دوام على عبد الهاشم الناس يسعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad ayuu mahadsan yahay gudoomiye waayeel iyo sheekadaas quruxda badan ee uu ku soo gabagabeeyay
beergan keliya kama qayb qaadanayso shirka dad baa meelo fogfog nooga yimi 500 kilomitir waxaa nala jooga xalane oo isna ka yimid Oslo wuxuu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Oslo waana wakiilka xisbiga wadajir ee Norway marka waxaan ku soo dhaweynayaa xalane bal isna inuu kelmadiisa nala wadaago بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرت الشرفة أقوى يهنينتا علماء الدينك حلبان نضا قدوميها أرك هوينك يسدوك لجالية برغن يوغو دنباين أمباسادر مدحوينها مستقبلك محمد علي النور أمريكو my friend آدي آدن إدين سلام يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة بين أقول دارادو كلمة سودوينة هي كلمة بوجادنا أو ريربرجن كوجهنا ربع بسنا سوجيديو arrimo siyaasadeed oo kale inaan ku fogaado oo ka hadlo marrabo oo xafladan saaxiibkii maxamed cali ameeriko loogu talagalay inaan arrimo kale oo siyaasadeed uga hadlo marrabo maadaama xisbi aan wakiil uga ah halkan maxamed cali intaan ka aqaano waa nin humble ah nabadoon ah usha dhaxda ka qabta laguna xasuusto dhacdo taariikhi ah taasoo ah in safaaraddii Soomaaliyeed ee Kenya ee la dhacay oo dib u soo celiyay 25 sano kadib markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay safaaraddii ay Soomaaliya Kenya ku lahayd waa la dhacay shakhsiyaadka dhacay waana iibsadeen maxamed cali ameeriko shaqadiisii koobaad oo qabta waxay ahayd inuu safaaraddii Soomaaliyeed uu ku soo celiyo oo ownershipkeedii ay noqoto mid Soomaaliyeed taariikhdu way qoran tahay wayna ku xusu doontaa maxamed cali fursad aan kaaga mahad celiyo mehelin maanta ka hor shakhsiyan anigoo farxaan cali xalane geesigii qaranka Soomaaliyeed ee xalane familkiisaan ah ee dugsiga tababarka xalal loo magac daray mar labaad waa isbarasho koowaad isbarasho labaad iskiin barayo way marka anoo fursadaas haysta as a familian reer xalane anoo ku hadlaya magacooda iyo magaca ummadda Soomaaliyeed waan kaaga mahad celinaynaa falkaas geesinimada leh ee taariikhda ay xusu doonto ee aad hanti Soomaaliyeed aad u soo celisay taariikh Soomaaliyeed safaaraddu waa taariikh siyaasaddeena arrimaha dawladda noogteed maxamed cali ameerika ayaa abaalkaas iska leh waan uga mahad celinaynaa mahadsanid mar kale marka labaad waxa waaye anigu waxaan ka imid magaalada Oslo ururada dadka u dhaqaaqa bulshada Soomaaliyeed aan kamid ahay sida jaaliyadda sidoo kale ururka dhalinyarada ururka ardada intaba qeybaan ka ah sidoo kale waxaan qeyb ka ahay ururka musiibooyinka hortagga musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Oslo way kala qaybsantaa waxaa nasiib wanaag ah Bergen inay tahay inay tusaale u tahay Soomaalida Norway ku nool oo dhan iyo xataa guud ahaan qurbaha aan dhaho jaaliyadda Bergen warkiina way ka soo horeeyay sida u midaysan tihiin sida urur haween u leedihiin sidaad isugu xiran tihiin annaga maalin kasta markaan shirayno tusaale u soo qaadanaa sida Bergen oo kale aan noqonaan dhahnaa I am proud maanta inaan reer Bergen hortaaganahay aanan inkugu mahad celinayo sida wanaagsan ee aad isugu xirantiin ee Soomaalinimada leh dadnimada leh sharafta leh runtii waxaad calaamad fiican u tihiin bulshada Soomaaliyeed ee Norway ku nool mahadsanidin aad iyo aad aan kaga mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan
u mahad celinaa intii ka soo qayb gashay iyo ambashadoorka oo maanta caawan martino ah ilaa shalayto waa u mahad celinaa imaashihii oo noo yimid anigu war badan ma aqaano aniga laftirkayga laakiin waxaan rabaa inaan ka hadla in yar Soomaaliya waagii hore ma lay maqlaa horta Soomaaliya waagii hore waxaa u soo dagaalameen waalidiinteennii hore markay u dagaalamayeen kollay wadankooda way jeclaayeen laakiin maanta aniga waxaan la yaabanahay Soomaalida wadankooda ma jecla miya barkee waxaa jirto waa soo baxnay dagaal ha dhaco laakiin waa laga soo wada tegay wadanka marka wadanka wax qof u naxa ma jira miya waa in wadanka wax loo qabtaa waa in wadanka wax loo taraa waa inaan wadanka aan maaragtay aan waa dhulkayni Soomaaliyeed ilmaha inta lagu dhalo haddii la sii joogo oo lagu sii dhalo waa gadoomayaan waxaa loo baahan yahay wadankayni inaan ka fikirno waa ra'yigayga aniga aan qabo maxaa yeelay Soomaaliyaan jeclahay wadankaygaan jeclahay dhulkaygaan jeclahay abkowgaya u soo dagaalamay Soomaaliya waxaan ka soo jeedaa dad oo wadanka u soo dagaalamay Sheekh Axmed Gabiyow hadaa maqasheen abukaatiga qore 60kii waa abtigay sharciga Soomaaliya wadanka waa wadankayni marka waa inaan jeclaana wadaniyadana waxaan leeyahay kor Allah u qaado ambashadoorkana waxaan leeyahay waa soo dhaweynaa ما شاء الله تبارك الله وأنا كم هتسني هاي إماشها أو يمد وركب بدي مايو وطن كان أنك فكرنه أنت سام كسوق جبجبيه أم بشتور هذه من ما هتسنت هاي إماشي أقبلات أنا جا أقبل شيء إن نوت ماذا وكم هتسنت هاي الحلبان كنا عبد الله علمي إبراهيم عبد الله سيسة أنا بلسنا سود ويو دنجرها أو هذا الكيس كوبان وهذا كان كسوجي عبد الله سود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنا دنجرة محمد علي أمريكا مدنا مرويال رير برجن قف كستر منصبك وهلكن كفر ديانك سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف أي نوت هاي رنانتنا نوت ما برجن وأنا سيبي يالنا إن أنا قلق قيب قادتي صعود الكاجي نبضة أنا أقولنا مالي أتكسر مرتي سومالي جيس إلا جيس يوروبي أمريكا بين أتمدي أتكسر مرتي وأنا نسيبي يالنا أنا قلق قيب قشاد أيان كاجي مهد علينا رنانتي وأنا كده ركسنا شخصي قاتاي aad ayaan maaragtay kaaga mahad celinaynaa hawsha ballaaran aad u qabatay ummadda Soomaaliyeed qofka bilaadanka waxaa lagu qiimeeyaa shaqada uu qabto marka laga soo tago shaqada nafsiyan oo si qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo shakhsiyan tuu qabto marka laga soo tago waxaa lagu qiimeeyaa shaqada uu bulshada u qabto waxaa jirtay warbixin ay dawladda Norway soo saartay oo lagu qiimeynayay qofku معنيه منصبك أو جاره مركا إن غطوا نتيجوينك أو كجاره أنت أي نقطة هذه أي نقول هاد صلاحان هذه نقول هاد وحنا لده إن أي دتكو احتراما وحيدا مركا قف كستو أو الشقب بدن ندي له حسابي ساعة واحدة ندي له حسابيه قف كستو أو الشقب بدن أو إسكا وحقوق قبس أو بدن أيام مركزته دتكو أي معني أي احتراما socdaalkaaga nabadda oo aadan lacag ku qaadan ku ixtiraamayna waxaan kaaga mahad celinaynaa walaalkii xalana sidoo uu sheegay inaad macnaheed hanti Soomaaliyeed safaaradda Kenya aad gacanteena ku soo celiso oo intaas sano ay maqnaad shaqada aad qabato aan kaaga mahad celinaynaa waxyaabaha kale oo aan maaragtay kaaga mahad celinaynaa waxay tahay in aadna tustid dagaal iyo dib kastoo dhaca ehel iyo rafaad kasta oo ehelkaaga loo geysto in aad na tusi kartid inaad qof bili aadan ku yimaado adar iyo cafi ku yiraahdo inaad cafiso waa wax aan u baahanahay inaan baranno aan ka baranno waan kugu dhiirigelinaynaa ilmo yar oo dhashay qof ka dilay
hadda qof weyn haddii uu yahay qof la dagaalamo waa laba qof oo shakhsi oo isdishay laakiin 18 bilood qof dilay macni sidaad ku cafisaa waxay noqonaysaa waxay kaaga baahan tahay inaad ka soo jartid qalbigaaga meesha u sareed inaad ka soo jartid marka taas waan kaaga mahadcelinaynaa reer Bergen haddii aan nahay run ahaantii walaalkii xalan waan ku maasan tahay waxaan qirayaa inaan aad aan ugu fiicana arrintan isku xirnaashada qabiilad waan kala nahay laakiin qabiilad ma lihin soo maahan aroosyada waan isugu tagnaa aroosyada waan wadaagnaa waxaan wadaagnaa markii kulan saan oo kale uu yimaado alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan maarad ugu mahad celinaynaa waxaan u baahanaa marka arrintaas inaan ilaashano nicmooyinka aan haysano marka aan ka baxno baan ogaanaynaa marka inaan maanta gacanta ku haysano tuulooyinka ugu hareeraysan iyo magaalooyinka marka aad tagtid waaweyn kale iyo wadamada kale ayaad ogaanaysaa nicmada intaad ku dhex jirtid ma aragtid marka sidaas tarteed ayaan u baahanaa inaan gacanta ku haysano ilaahay idinkiis marka anigoo magacayga iyo ku hadlaya magaca jaalid Soomaaliyeed waxaan kugu soo dhaweynayaa marka Bergen sidii walaalayga hore bay kugu soo dhaweeyeen ku soo dhaw Bergen hadalkaagan aad baan ugu xiiso qabnaa wallaahi barakaatu waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiya xafladan quruxda badan leh shalaytan igu soo dhaweeyay airportka oo ay hogaaminayaan ururka haweenka Soomaaliyeed ee magaalada Bergen iyo dhalinyaradii iyo mataqaana la socday oo ka mid ahaa xildhibaankiina anna aan xildhibaankayga Cabdulaahi Ataarbo ka yimid oo maasan waxaan kaloo maad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Oslo asna reer Oslo wakiilka ah oo maasan yahay gudoomiyaha kadaalika kulli ma sheegay karo kulligeen imaamka uu fadhiya gudoomiyaha fadhiya zaara kulligeen waa maasantihiin aniga sharaf ay tahay inaan maanta hortiina joogo waxaan kaloo aad ilaahay ugu mahad celinayaa shalayto markaan nimid iyadoo maalin jimco ahayd inaan masaajid mataqaanaa masaajidada ka mid ah aan salaad jimco ku dukado مغربكينا aan ku tukado masaajidka oo imaamka la tujiyo hawa ilaahay maadaas kale ma taqaano ku faraxsanahay si la sheegay aniga meel badan soo maray wadan gudihiisa ah iyo jaaladaha dibadda oo ma taqaano ay ka mid tahay Oslo iyo meelo kale badan North America iyo aan soo maray ma dhahayo maanta hortida fardiin laakiin waxaan ku faraxsanahay inaad midaysantihiin inaad midaysantihiin oo hal aad tihiin oo mataqaanaa la iska warqabtiin waxa waaye mataqaanaa aad ku mudan tihiin in laydinku mahad celiyo waan rajaynayo jaaladaha kale ee Soomaaliyeed in ayagan sidaas oo kale noqdaan insha Allah tacaala أنا تاريخ ولا شيء ما كان عبد الله أنا سمعنا وسيد في عن أولاد ده ما كان أنا وأقول الشيء حمر سير الشيء إنه الشيء ما كان تاريخ متقارن سنة كان الشيء وعندنا الشيء اللي إحنا لودي أكتوبر لودي توه كذي استوى كان الشيء رابو قفكي يغاني وحكي لا بالمان كهرة أيو كسر جري markii dambe waxa laga dhigay wasaaradda caafimaadka hadda waxa ku nool barakacyaal marka dib hadda ugu malaabanayo waxa soo qabtay iyo asiga walaasha sheegay laakiin maalmihii dambe waxyaabihii aan sameynayay markii shaqada safaaradda aan ka tagay waxay ahayd wixii hore aan bilaabay waxay ahayd inaan wadankii ku soo wareego Soomaaliya waa ogtihiin Soomaaliya way weyn tahay xashallah alxamdulillah waxaan leenahay badda ugu dheer Afrika waxaan leenahay laba wabi oo waaweyn meelo badan waxaan qabnaa qurux badan lagama warqabo markii la hadlayo ama TV-da la sheegayo ama social media waxaa la sheegay kaliya xamar magaalada Soomaaliya Muqdisho aniga waxay ahayd naftayda inaan soo barto wadankayga oo aan waqti u waayay dadka inaan soo arko ummadana aan u soo bandhigo wadanka meelaha kale oo ka jira iyo meelaha nabadda ay ka jirto Soomaaliya gudaheeda waxaan ka bilaabay dabcan xamar aan ka bilaabay waxaan ku xijiyay oo aan tagay Kismaayo oo ahayd haddana ah magaalada ku meel gaarka ee Jubbaland
oo aan mataqaanaa meelo badan tegey quruxdeedana aan soo muujiyey oo mataqaana meelihii oo aan tegey marka waxaan rabaa meel kasta aan tago waxyaabihii aan la kulmay inaan xoogaa kaga sheego maalin ayaan galab ahayd ayaa waxaa aadnay magaalada bannaankeeda meel dooxo ahood mataqaanaa oo cagaar keliya ayaa waxay kaxeeyey maamulka markaa joogay madaxdeeda qaar ka mid ah waxaan fadhiisanay meel bannaan geed hoostiisaan fadhiisanay oo shaaha meesha ku cabnay ani waxaan jeclahay inaan meelaha markaan tago inaan soo sawiro oo aan dadka usoo bandhigo ay arkaan mataqaanaa waddankeena quruxdiisa iyo waxaan leenahay maalintaas marka galaba ahayd casir ayay ku dhoweyd meesha waxaa soo martay wiil yar oo ari meesha ku ilaalinahay marka waxaan dhahay yaki nala socaan dhahay bal noogu yeer wiilka ama aan u tagnay waxaan rabaa inaan isku sawiro asna uu soo agstaago wiilka wuu xishooday wuxuu adeer dhib male ari u imaw ari markaa u tegey waan xoogaa u dhawaaday arigu uga cararay oo kusii dhawaadaa markas wuu sii didaa ereyga wiilkaan marka noo yimid yak saaxiibkaa wuxuu yidhi maxaa dhaca uu safiirka uga carray ariga adiga wuxuu dhahay barafuun ayuu ka cararayaa marka kadib waxaan aaday baydhabo janay ayadana si fiican aan magaalada ugu soo wareegay meeshii caankeed loo dhihi jiray bardaale aan tegey mataqaanaa beeraha laii soo tusay oo ku soo wareegay waxaan joogay 4 maalmood kadib waxaan ku soo laabtay xamar waxaan aaday garowe iyo puntland oo aan soo joogay ilaa iyo 11 maalmood soo joogay garowe ilaa habeenkii waqti baan socon jiray amnigeeda aad u fiicnaa kadib madaxweynaha markaas waxaa ahaa cabdiweli calgaas wuxuu siiyey gaari iyo darawal waxaa aaday ilaa iyo boosaaso waxaan sii marnay qardho kadibna waxaan tagnay boosaaso marka wadda intaan ku jirnay ayaa arrin ila kulantay qofka reer xamar u yaqaana oo anaga xamar iyo afgo iyo arigaag iyo meelahaas u dhow anaga waxaan aragnaa lo iyo ari oo daaqaaya meelaha daaqaaya geela badanaa ma aragno baadiyahaas ma ogi marka aad jirnay balcad iyo ama afgoyla aadaa iyo marka iyo waddada waxaa mataqaanaa laamiga ku aragnaa lo ama ari waddada u dhexaysa qardho iyo garowe iyo boosaaso horta waxaan ku arkay fardo anaga waxaan fardaha ku arki jirnay meesha la dhihi jiray fardoley xamal qofka joogaa yaqaanay xamal jab fardo waxaan arkay duurka ka daaqaayo oo cidna aan lahayn oo aad u qurux badan waxyaabaha aan qabnay ka mid tahay soomaaliya leedahay waxaa kaloo aan ku soo aadnay geel mataqaanaa daaqaya waddada dhinaciisa annaga markaan xamar iyo meelaha joogno baawarka waxaa la yeelan jiray hoonka suu xoolaha ugu cararay meesha yarka darawalka wadi aan horaan fadhiyey waxaan sugaya inuu hoon yeeriyo mogta in gacantu soo istaagay geela waxaan arkay oo laami ka laxay waa yaabay haddana xoogaa soconnay waxaa ma weydiin yarkii haddana geel kalaan aragnay oo laamiga saas u daaqaya asagoo waxba mataqaana uu hoon iyo xataa gaariga xataa ma qaboojin sidiisa xoog socday dad islaamayo kale geel waa ka laxday haddana waa soconnay haddana geelaan kusoo dhawaanay waxaan ku dhahay yarkii bal adeer sug anaa gacan taagaya markaan gacantaa taagay geeli wuu ka lexa waaya labada gacmood baan ku baxay wuu ka lexa waaya
wiilkii wuxuu yidhi arboowe wuxuu garanaya inaad xamar tahay laakiin haddartan bil ka hor ayaa waxaan soo joogay garowe taasoo kale waxaa u aadnay magaalada banaankeeda markaa geeri gacanta markaa u taagay oo naga lexday way bartay inaan ninkii hore ahay waxaan tegay qardho waxaa u soo dhaweeyey maxaa la boqor burhaan aduu mahad celinaya soo dhaweyntiisa wanaagsaneed boosaasaan tegay xilligaas waxay ahayd xilli qaxooti fara badan oo ka yimid yemen ay mataqaanaa baadiyada soomaaliya berbere iyo boosaaso oo aan mataqaana aad ugu mahad celiyey reer boosaaso iyo reer puntland ana markas waxaan dhahaa qaxooti ayaa tiino in anaga dad soo dhaweyn karno oo dad hayn karno inay natuseen mataqaana aad allah ka siiyo waa ugu mahad celiyey kadib waxaan soo aaday intaan joogay puntland waxaan ku socday gaari haddana waxaan soo aaday ilaa iyo maxaa la dhahaa gaalkacyo oo iyadan aan ku imid baabuur ku imid markii ugu horreysay inta aan tago meelahaas aan sheegayo oo aan ka ahayn baydhabo markaan imid gaalkacyo wiilashii i waday oo gaarigii reer puntland ahay waxay dhaheen waxaan ku geynayaa dhinac kale gaalkacyo ogtiin waa laba waa gaalkacyo puntland iyo galmudug marka dhanka galmudug waxay u sugayay wafdi oo mataqaanaa soo dhaweynayay aniga maadaama ay marka u horreysay oo la dhahay gaalkacyo kala qaybsan tahay runtaas sheega waxaan sugayay islahaa meel boorir laba ciidan kala duwan inay tahay meesha gaarigaan saarna isu u socday laba mil dhinaciiska saas kale ayuu dhahay waa kale meeshii galmudug waa wiilasha ku sugayay waa qosaa waxyaabo badan oo muhiim ah oo macnaha waddankeena xaaladoo maraayo iyo hamiga uu leeyahay shacab ahaan anoo magacaawda waxyaabaha oo ugu muhiimsan oo kelmaddaada aniga ahaan ka fahmaa ka qaatay waxaa ka mid ah ahmiyadda ay leedahay horta in la muujiyo si walba u ahaado nidaamka siyaasadeeda qaadanay waddanka laakiin hal dal inuu yahay oo dadkeena shacabka caadiga ah ee waxba macnaha isbeddel ama wax kala duwanaansho aysan lahayn taasna waxay ku imaanaysaa inaan horta bilowga aanan naga aaminno iyo inaan aaminno nabadda macnaheeda iyo nabadda qiimaheeda iyo tan saddexaad oo ah waddanka inaan baranno inuu ku koobnayn xaafaddaa degannahay magaaladaa degannahay gobolkaa degannahay oo laakiin intaas uu ka ballaaran yahay ee soomaaliya dal aad u baaxad weyn uu yahay oona khayraadkiisa badan tahay horta aad iyo aad ugu mahadsan tahay taas arrinka labaad waxa waaye qofka wuxuu raba inuu dalkiisa u qabto inuu asaga iska bilaabo intuu awoodana qabto eena muhiim ahayn macnaha meeqaa awoodda ama levelkay awoodda ay muhiim ay tahay maxaa rabtaa inaad samaysid iyo daacad makaa tahay taasna waa ta labaad aada ugu mahadsan tahay mid saddexaadna way dhiman tahay midda saddexaad oo iiga baxda kelmaddaada waxa waaye in wax walba oo la gashto juhdi ay ugu muhiimsan yihiin aqoon oo caruur la siiyo sida looga dhigo inay naftooda ayaga hadhowt wax u qabtaan dadkoodana wax u qabtaan oo laga bixiyo xaajada taasna waa ku mahadsan tahay marka hadda waxaa noo furan su'aalaha waxaa rajaynaa macnaha hal su'aal halkii marbo kolley waqti waa haysanaa insha allah soo dhawaa saaka iyo canjeeradii maqaayadii awgaabow runtiis waaye aniga markaan tago xaafadaha tago ama magaalooyinka aan tago ee degan yihiin soomaalida waxaan jeclahay inaan ka bilaabo inaan tago meelaha ay soomaalida ka shaqaystaan ama ay dukaamada ku leeyihiin si dadkana mataqaanaa loogu hambaliyeeyo looga mahad celiyo inay waddan dibadeed ay ka furteen maqaayado ay dukaamo ka furteen saakay waxaa waday axmed aawe axmed deeq aa waday waxaan dhahay maqaayad nagey maqaayadda magaceeda ma xasuusto
معك الملمع مقاعد الصوماليات برجن أنا ساكت تجي مع الله عشان الله يا شهرنجي يو عنجرو عن كسر عني لكن حبال وين أنا غير حمرة هاي وعكس وعقعنا مص marka waxa la maamulka iyo maxaa la milkiilayaashana waa ugu mahadcelinaya gabadhii magaceeda ma xasuusto laakiin oo natiijada quraacda macaaneedna waa ugu mahadcelinaya saaxiibkii xasan rooti asna waa u mahadcelinaya arrintoos sheegay oo ka dhawaajiyo muhiim waay in la iscafiyo cafiska waa arrin muhiim waaye dadkana waa ugu baaqi lahaa cafiska qofkii wax laga sameeyey keliya inuu ku farxo ma aha laakiin kii xataa wax sameeyey ama dambi galay markuu cafis weydiisto oo ka kale u ogolaado labadoodaba way qaban waayaan anaa markhaati ka ah ninkii gabadheeda dila markuu dhahay gabadhaan dilay marka hore waxaan ku fikir waxay ahayd inaan dilo waxaa la lahaa wiil caato ahaa mataqaanaa maalintaas waa xasuustaa markuu i dhahay waxaan ka mid ahaa wiilashii gabadhaadii maalintaas dilay waa soo qabtay meel maqaayada ahayd dadka jooga way yaabay xataa waxay dhahaan bashtoog maxaa ku dhaca maanta laba gacmood ku qabtay saas oo lugihiisaas dhahay wax kale ma ahayn aabbahay waa carooday gabadheedii aan soo xasuustay laakiin alxamdulilah ilaah maanta iskale ilaahay haddana qalbigayga soo qaboojiyey oo itusay inaan cafiyo isla markaas marka cafiye asna waa ooyey ana waa ooyey waa isku oyn labadeena waxaa keenayso wax kale maaha asna wuu dhibnaa oo dhibaa haysay intaas sannadood ayuu ku jiray maxaa la lahaa dhibkaa ku jiray uu seexan waaye wax qabsan waaye oo ii sheega xataa nimanka kale oo asna la socday qaarkood inay dhinteen qaarna la la'yahay marka cafiska waa muhiim hal is cafiyo ilaahay hada cafiye mucaawiyo oo mahadsan yahay runtiis waaye waxaa la lahaa in la iscaawiyo waa muhiim saan sheegay safaaraddii aan soo celiyay oo la sheegayna horta waxaa waaye aniga keligay iskama lihi ammaanta iskama lihi ambasador ahaa laakiin waxay la joogeen ku-xigeenaa joogay waxay joogeen maxaa la lahaa diblomaasiyiin kale waxay joogeen avokaatayaal looyaro gacanna siiyey kulligood ammaanta way wada leeyihiin keligay ma lihi arrinta taakulinta insha allah tacaala waxaa la dhahaa markaa laabto waxaan ku dadaali doonaa inaan idiin soo diro mataqaanaa habkii dadka loo kaalmeyn lahaa ama aan sameyno meel wax mataqaanaa dadka lacagta u soo shubtaan lacag waa ogtihiin way dhib badan tahay maamulkeeda aan ilaa gacanta ku qabto ma jecli waxaa haddii aan ilaa aan ka helno meel mataqaanaa la aamini karo ama hab la aamini karo oo leh accountability oo bisha markay dhammaato ama 6 bilood markay dhammaato la soo sheegi karo wixii waxay ku baxeen ani xisaabiyaan soo aan jiray finance soo aan jiray waxa la $100 hadii la soo diro la dhaho $5 waxay ku baxeen $2 san ee isla ekaadaan maxaa la David credit insha Allah taala markaa helo waa in soo sheegi doonaa duleeraad Abdurrahman runtiis waaye aroortoo sheegay iyo kuwa kaloo badan ayaa jiro oo saas oo kale ah ilmaha badankooda saas oo kale wiil casayaan ku arka xamar waxaa la lahaa 2016 aan jeclahay oo maqaayad ku taalo liido ayuu kobaha dadku casiinay markaa wareysay wuxuu dhahay reerkeyga ayaan ugu weynahay wuxuu jiray 12 sano wuxuu dhahay aabbahan wuu dhintay hooyaday aniga iyo Afrika walaalaanahay haddana wuxuu dhahay hooyaday xaamilo qabaas oo caseeyo oo maqaan $1 iyo maalintii waxaan ka dhahay maqaan $5 ka hela ma wax meel yiri marka way badan yihiin dhibku badan yahay in sheega waaye ilaahay idinka ha intuso wanaaga iyo iskaalmeeska wallahi aniga waxaan aaminsanahay ilaa ka sokow maanta hadaa bixis $1 bixis maybe bari ma helaysid maybe bish ma helaysid laakiin ilaahay mar aan ogeyn ayuu ka badan ku siinaa
aaminsanahay marka aan iskaalmeerno insha allah ku salaamana saaxiibkay awgabu arrinta ku sheegay oo musuqmaasuqa dadku way iska hadal badan yihiin aniga hadda waxaan ka sheegan karaa markaan joogay aan safiirka ahaa horta anaga safaaradda Soomaaliya ama safaarad waddan marka u tahay waxay visa siisaa ay bixisaa visa waddankooda ana marka cusbeen visa lama bixin jirin visa lagu aado Soomaaliya ahayd Soomaaliyana visooyinka waxa laga qaataa waa on arrival waaye waxa laga qaataa Soomaaliya gudaheeda marka visa aan musuqmaasuqnay aan ma arkin cid kale wax ma ka sheegi karo Allah yaclam waddankan aad joogtaan oo dibadda ah marka la yimaado Soomaalida iyo ajaanibta badankooda waxaa lagu eedeeyaa inay dadka kale ku milmin inaynan qaadanin ama shuruucda u yahay waddankaas aynan dadka dhexgelin ayay kala isku koobnaadaan aynan baran mataqaanaa waddanka sharciyadiisa iyo mataqaanaa waxay xaq u leeyihiin aynan baran marka waxaan kugu talin lahaa inaad dadka dhex gashaan ma dhahayo wax qalad ah qaata laakiin waxyaabaha xaqa u leedihiin oo hadda aan ku amaanayo inaad xildhibaankan iyo gabadha kale xildhibaanada aad ku doorateen xoogga saarteen markaa midowdeen inaad samaysiin oo aad dadkiina mataqaana wax idin qaban kara soo doorataan xaqiina raastaan haddii laakiin aad idin keliya isku koobnaataan waxba ma samaysan kartaan dhallinyarada run waaye Soomaaliya waxay tiri nidaamkee ka jira Soomaaliya waxaa la soo maray habab fara badan hadda waxaa lagu dhaqmaa waa ogtihiin habka la yidhaahdo 4.5 inkastoo aniga aanan jeclayn 0.5 waan aaminsanahay waxyaabaha cuqabadan haysta ay ka mid tahay in qofka la mida la yidhaahdo waa nus ama 0.5 in lagu soo dhaqmay lagu soo hadda lagu shaqeeyo dowladdii ku shaqeyso lagu soo doortay mataqaanaa xildhibaanada ayaa hadda lagu dhaqmaa oo parliamentary ah laakiin in laga gudbo ayaa la rajeynayaa waxyaabaha aan u doodayna waaye loo gudbo xisbiyo loo gudbo lagu doorto dadka xisbiyaal lagu doorto taasna ilaahay hanagu toosiyo Soomaaliya ku jirta accountability iyo transparency dabcan boqolkiiba boqol maaha waxyaaba badan ayaa qaldan laakiin markii la helo aniga aaminsanahay doorashooyin saxa oo hal qof iyo hal cod ah dadka laga xisaabtamo insha allah waa la gaari doonaa Ridwan wuxuu sami ku yahay wiil aan abko u ahay abko ma taqaanin wiil uu ahay ayuu ku magacayaa Ridwan wuxuu dhahay si loo soo celin karaa xasiloonida loo joojin karaa qaraxyada anu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab in la sameeyo dib u heshiisiinta maxaa macnaheeda waa run dib u heshiisiino fara badan ayaa la soo sameeyey oo waddanka dibaddiisa ah qaar gudihiisa ah laakiin dadka ilaa laga sameeyaan aaminsanahay laga soo bilaabo degmooyinka gobollada magaalooyinka waaweyn loo yimaado la soo fariisto ayaa imaan kartaa in la iscafiyana kadib ayaa nabadda imaan kartaa aaminsanahay aniga waagaa yareen qabiil ma jirin waxaan ku soo kornay qofka kaa weyn waa eedada ayada habirta adeerka abtiga qof kasoo kaa weyn aan ku soo kornay qabiil lama jirin subax marka la soo kaco see leeyahay waxaa dhihi jiray reerka soo ku baryeen xalasoo lagu baryey waa la isbaridin jiray ilmaha say yihiin hadda xogaa waxaa moodaa dadka inay dhib ku dhaceen oo xataa la iloobay maaragtay oo la iswaraysanin marka in laga baxo qabiilkan oo loo gudbo walaalo in la yahay xoog waa la arkay iyo dagaal cid guulaysanaysa ma laha Kii ka dhiidhiye ka dhaqaaq la yidhi dhulkeeni
weeyaan